مناسبة سهر سرا لو سو agaastimay isla markaana lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa lagu qabtay magaalada London. Munaasabada ayaa waxa soo qaban qaabiyay bahweynta baraarujinta Banaadir oo xaruntooda ay ku taalo magaalada London. marti sharaftii munaasabada ka soo qayb gashay ee hadaladoodii waxa kamid ahaa caawa waa la socotaan waxaan isugu nimaanay inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii ummadda Soomaaliyeed waad la socotaan inay dhibaatooyin badan iyo muddooyin badan ay colaado iyo dhibaatooyin badan soo jiri jireen laakiin maanta alxamdulillah waxa u dhashay madaxweyne ummadda Soomaaliyeed ay isu raacday ayna dooratay waana marqaati waxaad ka tihiin in baarlamaanka sida wanaagsan ee loo doortay oo sharafta badnayd ay sida wanaagsan ay ku dhamaatay ay xildhibaanadiina xil isaga saareen inay si cadaalad ah wax loo soo doorto cadaaladaasina uu ku guuleystay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo أخيات شرفت لها وسلامتين من استوجوتان عاوحن آد وفرحسناهي حفلتان أن تاجرينه حبينهن عصب مدن فرماجو آد أيام وفرحسناهي شعب كوطن آد وفرحسن سببت وحيتهي وحادري مسا إن سوماليا خبير ودماغي يعني محات خانة إني تمي مركتاتنا شرفوين أي نويتهي الحمد لله رب العالمين شعب كصوماليا هؤلاء مدحوينها فرماجة وخوف كلية هدي أن لقرب خبانين هدي أن لسف عن لون تاجرين هدي أن حاسن لماذا لقد عارفين إنه كل جيس واحد خبان كرين صوماليا تاسع وقاته وحن ما حد بلارن أن أجيدين يا قولها شعبك أما برلمانك وسريو مدن بروفيسور جواري iyo ku-xigeenadiisa runtii oo si sharci ah oo cadaalad lagu doortay halkaasi runtii aad iyo aad ayaan ku maqsuudnahay aan ku faraxsanahay waxaan soo jeedinayaa hambalyo madaxweyne Farmaajo guusha oo maaragtay aad soo hooyisay waxa waa guusha shacbiga guuxooda ilaahay ka dhabeeyay waa taa adigu guuleysatay maaragtay dadka iyo maaragtay ummadii ku jecel qaaradaha oo Europe America مع أفريقيا إيشيا مالك جوجانبا maaragtay habeenkii doorashada waxay noqotay habeen oo maaragtay ciid ah waa maalin ciid oo kale ay noqotay waayo ilaahay waxa uu qadaray waxa lama filaan ah wixii ilaahay qadaro inuu soconaayo maalintaasna waxay ahayd 8 maaragtay February maalintii ilaahay ku caleema saaray inaad mas'uul ka noqotid ummadda Soomaaliyeed ee baabasan runtii waxa kale oo mahad celin mudan xildhibaanada oo runtii isticmaalay shucuurta shacabka sida ogtihiin wadanka shacab wax ma dooranaynin laakiin waxa wax dooranayay xildhibaanadana runtii waxay noo muujiyeen runtii markaan ka hadlayno oo xaqiiqada ah shacabka waxa ay dareysan yihiin ay mar run ahaantii la tageen baarlamaanka ay sanduuqa doorashadana ay ku rideen run ahaantii waxaan soo istaagay inaan u hambaliyeeyo madaxweynaheena aan u daceyno madaxweynaheena wadanka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan ka codsanaa ammaanka oo Soomaaliya ciidamada oo ku bilaabo wuxuu ahaa ammaanka ay sugaan oo mushaharku ballan qaaday iyo abaarta inuu kaas u kortago guul ayaan ku rajaynaynaa insha Allah taala haddaadan waxba ku guuleysanin jaala madaxweyne oo aad ku guuleysatid cadaaladda waa guuleysatay caawa beeshan waxaa iskugu nimid inaan taageerno